26 juun 1960 British Somaliland waxay qaadatay xornimadeeda 5 maalmood kadib 1 luulyo 1960 Italian Somaliland ayaa ku biirtay laba dhul oo kala go'ay oo 70 sano oo gumaysi ah soo maray ayaa midoobay oo dhalay jamhuuriyaddii Soomaaliya waxay ahayd rajadii iyo riyadii jiilal badan riyo ay la socotay farxad iyo diilo iyo rajada mustaqbal wanaagsan maanta waxaan dib u eegaynaa 9 sano ee ugu horeeyay xornimada waqtigii ay Soomaaliya noqotay mid ka mid ah dalalka dimuqraadiyadda ugu horeeya Afrika laakiin riyadaasi waxay la kulantay caqabado qoto dheer ka hor 1960 Soomaalidu waxay ku kala qaybsaneed laba gumeysi waqooyiga waxaa maamulayay Ingiriiska koonfurna Talyaaniga dagaalkii labaad ee adduunka kadib qaramada midoobay waxay Talyaaniga u xilsaareen inay Soomaaliya u diyaariso xornimo 10 sano gudahood laakiin Soomaalidu waxay doonayeen inay isla markiiba midoobaan 26 juun 1960 Hargeysa waxaa lagu qaaday calankii Soomaaliyeed 1 luulyo 1960 muqdisho waxaa ka dhacay xaflad taariikhi ah aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxaa loo doortay madaxweynihii ugu horeeyay isaga ayaa 22 luulyo u magacaabay cabdirashiid cali sharmaake inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dalkan cusub wuxuu helay dastuur dimuqraadi ah 1960 kadib afti dadweyne aadan cadde wuxuu ahaa hogaamiye daacad ah nabad jecel oo diiday qabyaalad dawladdiisu waxay diiradda saartay dhisidda dawlad dimuqraadi ah doorashooyinkii ugu horeeyay ee baarlamaanka waxaa la qabtay 1964 dalka waxaa ka jiray xisbiyo badan saxaafad xor ah iyo doodaha baarlamaanka waxaa la dhisay wadooyin dugsiyo iyo isbitaalo laakiin dhibaatooyin ayaa jiray dhaqaale liita qabyaalad qarsoon iyo musuqmaasuq iskiya ha yeeshee Soomaaliya waxay noqotay tusaale dimuqraadiyadeed Afrika oo dhan riyada ugu weyn ee Soomaalidu waxay ahayd Soomaali weyn midoobida dhammaan Soomaalida ku nool geeska Afrika calanka cusub wuxuu lahaa prediction geesood ah waqooyi koonfur ogaadeen NFD iyo Djibouti dawladda waxay taageertay dhaqdhaqaaqyada madaxbannaanida goboladaasi tani waxay keentay isku dhacyo 1963 ilaa 64 dagaal yar ayaa ka dhacay xadka Itoobiya Kenyana waxay la kulantay dhibaato ha yeeshee Soomaaliya waxay xiriir wanaagsan la yeelatay dalal badan oo ay ka mid ahaayeen Masar iyo Midowgii Sofiyeeti 1967 doorasho madaxweyne ayaa dhacday cabdirashiid cali sharmaake ayaa ka adkaaday aadan cadde oo si nabad ah u wareejiyay xukunka tani waxay ahayd dhacdo naadir ah marka Afrika la joogo sharmaake wuxuu xooga saaray horumar dhaqaale iyo xiriir dibadeed laakiin qabyaalad musuqmaasuq iyo dhibaatooyinka xuduudaha ayaa sii xoogaystay dalka waxaa ka dhacay abaaro dabayaaqadii 1960 taasoo keentay qaxooti iyo dhibaato dhaqaale 15 Oktoobar 1969 madaxweyne sharmaake waxaa lagu dilay laascaanood intii uu socdaal ku marayay waqooyiga dilkaasi waxaa geystay ilaaliye ka tirsanaa ciidankiisa dhimashadiisa kadib dalka waxaa ka muuqday qalalaase siyaasadeed 21 Oktoobar 1969 6 maalmood kadib ciidankii Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre ayaa qabsaday xukunka iyagoo aan dhiig baadin dimuqraadiyaddii 9 sano ahayd ayaa soo dhamaatay kacaankii ayaa bilaabmay 9 sano oo xornimo ah ayaa ku dhamaatay rajo iyo qalbi xanuun Soomaaliya waxay muujisay inay awood u leedahay dimuqraadiyad laakiin caqabadaha qabiilka iyo dibadda ayaa keentay in isbedel weyn dhaco maxaa dhacay inta xigtay sidee ayuu kacaanka Siyaad Barre u bedelay dalka qaybta labaad kacaankii Siyaad Barre iyo hanti wadaagga sayniska